warbaahinta iyo falanqeeyaasha Itoobiya ayaa sharci jabinaya gaf uu galay Mustafa Cagshar ku tilmaamay jawaabtii xukuumadda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Khamiistii la soo dhaafay ka bixisay eedan uga timid dowladda Soomaaliland ee ahayd in magaalada Laascaanood ay ka dagaalamayaan ciidamada liyu boolisku. barnaamij ciwaan looga dhigay Mustafa awood ma u leeyahay inuu u jawaabo Soomaaliland ayaa laga sii daayay mid ka mid ah warbaahinta Itoobiya online-ka ah ee aadka loo daawado, waxaana lagu dul istaagay qodobada sharci iyo dastuurka Itoobiya ee uu jabiyay Mustafa Cagshar marka ay xukuumaddiisu soo saartay qoraal luuqad adag ku qornaa. wariyaha barnaamijka daadihinayay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynayaasha deegaanada dalka Itoobiya ay yihiin sida balasaabyo oo kale, isla markaana aanu sharcigu dalku u ogolayn inay si uun ugu tallaabaan xuduudka iyaga oo aan ogolaansho ka haysanin dowladda federaalka. siyaasiyadda ay abuuraysa jawaabtii xukuumadda deegaanka Soomaalidu ka bixisay eedayntii Somaliland ayaa uu sidoo kale wariyuhu sheegay in loo arki karo mid qabiilaysan. haddii Mustafa hadlo waxay noqonaysaa arrin qabiil ee ma noqonaysaa arrin dowladeed. Mustafa iyo qoladaasina waa isku qabiil. annaga Somaliland waa deriskayaga. musuqa ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaana burburiyay dhaqaalaha Somaliland.